Doorashada Ameerika waa tusaalaha hogaamiyaha mustaqbalka ee Soomaaliya. Qof walba oo Soomaali ah wuxuu ku fikiraa inuu indhihiisa ku arko Soomaaliya oo nabad ah, horumar ka jiro, cadaalad ay shaqaynayso, dadku ay faraxsan yihiin, aana la isku dilaynin, wax qarax aan lahayn, qabyaalad ay jirin, isjiijiid ka gudubta. Dhalinyaro, wiilal iyo gabdhow, haddii aad sii eegtaan oo aad tidhaahdaan waxaan sugaynaa inta ay ka imaanayso madax noo noqota gacan qabad madaxweyne awood u leh inuu Soomaaliya badbaadiyo, waa riyo adigoo soo jeeda aad ku riyootay. Soomaaliya waxaa 4.5 lagu maamulayaa muddo 30 sano ilaa iyo bilowga dowladnimada. Hogaamiye walba yimaado waxaa lagu soo doortaa waa reer hebel, waa in adeerkay u coday, jufadaa wadato, dal hebel ayaa taageeraya, ganacsade hebel ayay saaxiibo yihiin, mashruuc hebel buu hadda ka hor dal hebel uga hirgeliya Soomaaliya. Bilcagsi nolosheenu waa faqri, weliba dal dhaqaale leh, dhalinyaro awood leh oo aqoon-yahana, haddana balwad dul fadhido, horumarna ayna ku fikirin. Hooyooyin u ilmeynaya inay mar-uun arkaan carruurtooda shaqaysanayso kuna faraxsan dalkooda. Haddii 4.5 la laalo, waa in adeerkay 30 sano Soomaaliya halkay tegi kartaa. Baydhabo waxay la tartami doontaa Bariis, Garowe waxay ka horumarsanaan doontaa London, Gaalkacyo waxay la noqon doontaa Dooxo, Kismaayo waxay noqon doontaa Las Vegas cusub, Xamarna waxay noqon doontaa xarun midnimada kana horumarsan dunida oo idil. Kuwa hadda joogo u fiiri, kursigan yar ayay isku dilaan, macno uma lahan inaan anaga dhimano, dhiig ayay u daadiyaan, ma ogolo inuu isbedel dhaco. Xildhibaanku mar walba wuxuu rabaa inuu soo laabto, wasiirku waa la mid, siyaasi walba xataa maalin xafiis dowladeed ka soo taliyay wuxuu rabaa inuu dib ugu soo noqdo doorashadii uu shalay ku fashilmay. Ma lahan qorshe cad. Haddii aad weydiiso waxay kuu sheegaan in 30 sano burbura lagu jiray, ayna adag tahay Soomaaliya in degdeg loo dhiso. Qarankeenu ma lahan siyaasad guud uu ku wajaho arrimaha gudaha iyo dibadda. Haddii guduhu aad fiiriso, waa reer hebel, ugaas hebel, suldaan hebel, imaan hebel, beeldaajiye ayaa laga suga xalka. Iyaga hoteelada ayay ugu shiraan, iyagoo midba midka kale uu ku eedayo inuu yahay jaajuus iyo qarandumis. Way wada qoslaan, haddana way wada farxaan, wax way wada cunaan, balse warbaahinta iyo baraha bulshada waxaan dhammaanteen oo Soomaaliya iskaga naxay cadow. Haddii uu ka soo jeedo beeshaada amba tan kale, ama kan madaxweynaha hadda joogo, ama kii ka horreeyay, ama kan imaan doono, ama kan soo socdo, dhammaan waa isku mid. Xafiiska maalinkuu imaanaya xafladaha ugu horreeyo ee Norway ka dhaca, London, Turkiga, Holland, Mareykan, South Africa, waxa u dhigtay jifadiis hebel iyadoo lagu sheego in aqoon-yahanka hogaamiyaha ah ee la soo dhaweynayo. Warbaahinta ayaa loo wacaa, xaflad casho lagu sheego, fanaaniin u haysa, waa loo khudbadeeyaa. Haddana markii bannaanka loo baxo, fadhi ku dirirka kafayga ugu horreeya qurbaha lagu cabo, waxaa loogaga sheekeeyaa hebel wuu fashilma wuuna yimid, wuu fashilmi doonaa. Dad ayaa ku sii fikira xataa in madaxweynaha la sii fashiliyo, weliba inta xafladda la joogo sawiro iyo fiidiyoyo Photoshop la iskugu keena magacdil loogu sameeyo. Waxaa soo dhow doorashada qarankayga,
waxaa soo socda weliba maalmaha musharaxiinta boorar isdaba orda siyaasi hebel aqoon-yahan hebel injineer hebel garaad hebel oo hoteel kula shirayo musharax madaxweyne waa maalmo musharaxiintiisu uu badan yahay haddana waa qawda maqalsii kursigana igey ballanqaadku waa been jidka wuu noo furi doonaa ayuu ballanqaadi doonaa haddii aan nahay reer xamar kuwa kismaayo jooga kan garooba jooga kan hargeysa jooga kan baydhabo jooga jowhar iyo beledweyne guracayl dhammaantood waxaa loo wada ballanqaadi doonaa horumar 4 sano lagu gaaro laakiin madaxweynaha haatan 2021 xilka rajeynayo qorshaha gacanta ugu jiro waa kaliya inuu kursigaas xafiiska filla Soomaaliya maalin uu ku fadhiisto mudane madaxweynena la dhaxo calankana salaan ay ugu saaraan maalin walbo darajada uu leeyahay iyo askartaba madaxweynaha qarankeyga inta aadan xafiiska imaanin qorshe lahaw iyo han hagi kara dal hiilka doonayo ha ugu umaanin inaad maalmo lacag ka sameysay magac anigoo maxamuud sheekh cumar ayaa idiin soo jeedinaya intaan dib u kulmi doono haddii aad barteeda ku cusub tahay YouTube-ka ee maxamuud milaano official fadlan saaxiib igu soo biir si aad ugu socoto warbixinada kala duwan halkan ku soo gudbiyo waad mahadsan tahay waxaan idiin rajeynayaa isfahan Soomaaliyeed iyo midnimo barwaaqo dalkayga inuu noqdo idinkuna aad ka shaqaysaan ha hurdin dhalinyarooy kac oo dalkaaga u heli kala saar lahu kala socdo sixun u fekero kala saar lahu kala socdo sixun u fekero aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy Soomaaliya Soomaali baale